waxaa maraysa wadda highway xaafadda waan ku noolahay haddana ma garanayo magaceeda waan garanaya waa Naasa Hablood waddadii Naasa Hablood baan hayaa saan filayo waa waddo weyn oo jidka soddonka kor ka soo gasha laami baa kusoo socda ramadaan kariin adduunka khalkhal buu ku jiraa ilaahay khayr ka dhigo Soomaaliya nagaba teen u yaabanba soo wax siyaasada oo inoo furan totally ma ba jirtaba siyaasad baa inoo furan oo maya waxa kuu furan inaad dantaada garato qabyaaladda iska dayso nin walba waa inaga iskala qaybinay isteediya isku kala qaybinay inagooba gabaynuba afar xaba dalka inta leegna haysana nimcada ilaahayna haysana inta leeg uu siiyay miimada meesha inoo taal waa maxay halkan aan la galay bariga dhaxa wax ka socdaan bi baaba waxba kaama qosayaan waxa ka qosayaan kalluunka baddaada ku mashquul waa muslim waa sidan teena nin tiisa daryeela tu kala ku dara wixii muslim oo ducaynayna adduunka oo dhan inagu wayna wada saameynaya oo ducaynayna inuu ilaahay dajiyo marka Soomaalidu waa imisa kun oo qof waa imisa bilyan imisa milyan 2 bilyan 20 milyan saasaan ku qiyaasay 20 milyan marka 20 milyan oo dalkii qaybi maqan tahay qaybna inuu gacanta ku hayno intaynu gacanta ku haynana inuu maartay iskala qaybinay laakiin xeebta ugu dheer Afrika kalluunka ugu macaan bad iyo bari nimcada iyo shidaalku iska fadhido ilaa madaxweyne siyaad bar ilaahu naxariista ilaa hadda ilaa xilligeenu de tuugadii baladii xorriyadda ka qaadan dalkeena la soo noqonay inayna ma guumaysan inuu inagu intayna soo weerar markii dambe iska celinay dalkeena khayraadkiisa wali laga ma faa'iideysan marka wixii islaynaya wixii istagaalaya waxaas horteena ay haysataniyo waxaan uga socdaa marka 20 milyan ee Soomaalida ah afar nin oo daniista bay daba socota iyo qabyaalad qabiilku ceeb maaha waa la tacaarufo inna akramakum inda Allah yatqaakum ayada quraanka ba sheegay qabiilku de wax la isku gartay inay tahay laakiin aad qabyaalad ku dhaqanto wiilka yar Soomaaliga mustaqbalka leh saas odayaal yar albaaba u kala xirtaan khayraadkina xanibay ilaa hadda gorma laga baxaya gorma danteena garanayna Ramadaan Kariim caasimadii dulwada ku soo dhawaada suuqa caalamiga ee injiban xogaadayga yar ka soo tuuranen kadibna xaafadahayga waa furtageen marka inta waxa hadalka ugu soo dhex tuuray meesha adduunka waxa ka socda iyo buuqani waxa isdaba yaacay Soomaaliya wax niga galay ma jiraan هذا ديارة دي حمر كتي ما دقروا وكسعة العليلية هذيك بس كلا قيبنا هذيك بأفر حبة أفر تادي حبة واحد قرن هذا خيرات كاجي ونا كاجي دلك هذا كوتشينات كفايديس هادون كلا يكتب هذيك بأور سنة وأنا تذكر كعنانيو وحاس تبيع وحاس قريبة يودن شعب هلا شعب وحاس أرماه كوتشينات كيوميش dadku toodi buu yaabeen bayaga baa wararsan marka iglan baa gubanaysa aniga maxay iga gidhiisha buu yiri maxay iga gidhiisha wabillahi tawfiq
baaray underground xagga hoose in shidaal ku jiro magaalada Garowe dhulka hoostiisa shidaal baa ku jira sababtoo ah anoo la baaray Soomaaliya oo dhan baa shidaal ka buuxa hadda halkaan maaragtan buurta ka muuqata soo dhaweey buuraha maaragta saasi u taxay ilaa la saxanad ilaa meel dhalinyaro hadday saacadaha dahabka iyo wax walba lagu baadho soo iibsadaan wasaaradda macdantii waxaa laga iska diiwaangeliyaan meel walba la baarto oo malanaysa hadda gobolka Sanaag waxa dahab laga baaray waa aragtaa hadda xil roobaadkii baa soo dhow markuu roobku da'o qofka dhalinyaro wuxuu samayn karaa meelaha biyo mareenka ciideedu baari karaa dahab baa iska dhex jooga meel walba macdan iyo kala dahab kaliya adduunka lama raadiyaba dahab kaliya inaga inuu qufle kun macdan oo kala duwan lacag laga heli karaa meel walba laga heli dhagaxaanta meelahaas oo wada yaalo dhan waxba ku magaranaysa marka warteeneen ku mashquulna adduunkan iswadeeriyanaya iyo waxa naga maqasaya waxay kaayar waa wararsan dhalinyarada wadada sii lugeynayso dhanba waa afurada inta la gaarayo kubaddooda iska soo ciyaarayaan nabadgelyo gurigooda iska aaday hadhow marka waxaan leenahay siyaasiyiinta dalka ha u naxaan dhalinyarada ha u naxaan mustaqbalkooda haddaanan kuwa loo nixin hadda inaga hor muuqda kulli wallahi doonta isku gurayaan carab xun baa meelaha ku xiranaya oranaya soo dir hooyooyinka masaakiinta tabandhada meel walba caanaha iibinaya ku oranayaan 15000 soo dira xagee ka keenaysa 15000 wayna guriga deganta iibisa marka niyo diyaarada xamar ka timaado la celiyo oo Garowe ka dagaysa mana diyaarada ciidan wado Garowe ka tagtay xamar loo diido iyo mar walba in afar oday mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ka shiraan waa laga qurux badan dadku waa inay mudaharaadaan waxan wixii xul la diidaa intaanu bariga dhaxay wax ku mashquulsanahay waxan danteena galib marka dalkeena jeclaano isku duubnaano qabiilku ceeb maaha qabyaalada iska deyn kuma leeyinaad daarood tahay hawiyad tahay isaaq tahay ceeb maaha wataas waa isku garasho laakiin baashu dhiibliyan sida iimaanka halka kaaga dhaadhicin aad oran qabyaalad marka qaar wuxuu soo doonta iska celi daadin gardareen shakhsi baa kugu gardaro kale iska celi karta laakiin qabyaalad qof Soomaaliya marka Soomaaliya markaan uga baxano aad sabay Nairobi marka tagto Soomaali baad airportka indhaysa u taagan airportka marka international ka joogo sababta qof Soomaali baa raadinaysa hadda Soomaali wada Afrikaan baa raadinaysa maxaa ina danteena inaan garanno Iran baa halka dhacday Shiica halkan la duqeeyay waxaas waxa adeer taadi baa quruntay walkii dabca sare marka ilaahay khayrkii wanaagga hayna balkeeyo nabadgelyada ilaahay noo siyaadiyo rawaanta ilaahay naga aqbalo abaaraha ilaahay naga soo muslimka ilaahay u gargaaro wixii muslimna wixii meel walba ku dhiban ama Falastiin joogaan meel walba ilaahay u gargaaro Soomaalida ilaahay u gargaaro hadda waxaan arkay diyaaradii Garowe ka soo degi lahayd baa waxa Muqdisho lagu amray lagu soo celiyo hooyo maama neefta ku dhigtay shicibkaasi maxay geysteen siyaasi xildhibaanada loo dan leeyahay maamadii ba dambigi ku dhacay hooyo anaqasi ku dhagay soo galay muuqaal hooyadu maxay geysatay waxa way waa dulmiga shacabka laga galay way dalka miyuu hagaagay ma hagaagay marka war shacabka ilaahay insha Allah ina hanuuniyo isku duubnaan wanaag insha Allah khayr iyo barwaaqo la gaariyo soo dhawaada mar labaad Garowe rabadaan tacaawa 13 bay noqonaysaa san filayo waa 13 xalay 12 noqonaysay already 15 baa la kala barkii way ku taagan tahayba 10kii dambe la gelayaa insha Allah kuwii ka faa'iideystay Ilaahay naga dhigo rabadaan kariim markaan dalka xaaladiisa ka warama dhiiga way ku kacaa gabigii waa dhidayaaba tuuga ina haysato tuugo laakiin insha Allah ka bixi doonaa bajaajta ka gaar naga joogoriye marka khayr baan waan saxaarado dhan qofkii
garow waan sheegaya aagganaan maraya soo sheega ma bulsha ma ii sheeg magac bay leedahay aaggan waa macruuba soo sheega afradii baa loo kala hortay qofka halkuu taagan yahay ka war marka alla simantayn u dhaqaaqaya ruuxa ka war intii hore waa dhaqaaqi waaye markaa la sinaa u dhaqaaqa la yaab male wuxuu ka yimid tuulooyinkeennii magaaladiiba ku soo dhowo garow bowe Soomaaliyeed caasimadda Puntland iyadu waa buuqa ma karayso Soomaali weyn oo dhan baa ku nool cid walba oo magaalada nabadgelyada ka shaqeynaysa ganacsigeeda iyo danadeeda ku mashquulsan magaalada waa ku noosha ka koona Soomaali meel degtaba ka imo caasimaddu waa soo dhaweynaysaa nabadgelyo iyo waxay ku soo dhaweynaysaa horumar dhul Soomaaliya oo dhan waa sidaa weey qofka Soomaaliga cidina ma timaado xagga ka timid iyo xagga inta kale dalka iska soo gashay oo timaado iska soconaysa muuqaaladii hore kaga waranayna iyagana insha Allah shaqooyin badan baa laga qabtaa waa in sharci loo sameeyo dalka ku joogan waa in sida inagu markaan dalka kala tagna maartay fiisa ay ku joogan dalka kuugu dhaw hadda fiisa la kuma joogi karto inkastoo dalka dariskeena ay Soomaali badan iskaga noosho fiisa waxaas inda weydiin laakiin mar walba waa in ama ID-gooda samaystaa ama fiisa ku joogtaa غير ما اهتمش فيديو وقلبه كده حركة كده وقتروي لكن واحد راح حاجة هنا قصوا هاي سوي حين سوق لينا يا بتشاتش والله سوق إنتي من كركة سوق قوي برنامج رمضان كريم والنتي هبيك بني وعناضو وانيكا horumar baa inoo ballan insha Allah ciid la soo dhaw waxaan ku yiri meel walba kaba iyo hawlaha la soo dhigaya ganacsatada keenta kabaha magaalada iyo Soomaaliyaba dadka kabaha one time ka daaya gabigooda baan hal bil isticmaalaya kaba leedar iyo wax kale waxa meesha hadda kaba saaran caag bay badan yihiin iyo khiyaali oo maqashaan hooy هذا waxaan ku noolnahay wax ku dhow 20 sano soo xogta waan haynaa hooyooyinkii caruurta kaba fiican loo keeno hadiidan u keenay dibka ka daaya caag bad ku soo daldasheen iyo kaba yararo boorsaad moosiga ka sameeyay dadku wax way iibsanay laakiin wax tayo loo keeno wax tayo leh ganacsatada yaryar lama hadlayno ma sheegina ganacsatada yaryar iyagu waxay ka soo qaataan bakhaarada marka bakhaarada waaweyn iyo nimankan ganacsiga keeno waa inay u keenaan wax tayo leh si ganacsatada yaryar nooga sii qaataan si dadku markaa waxay u anfacaan waa iga talintaasina
soco saaxib soco suuqa inji waxaan ku yidhi waa ganacsatada yar meesha doonaan bay istaagi karaan waa in adigu ka leexataan sababtoo suuqoodii baa ugu timaaday waa shaqaysanayaan ciidaha iyo maalmaha wixii 15 maalinta ciidda markay soo dhawaato 10ka dambena laamiga waa loo xirayaaba saas baa loo baahayay waa in la ilaaliyo sababtoo ganacsigooda soo koraya moogta meel walba haddii loo dhiso waxay kaga kalsoon yihiin laamiga inay soo dhex istaagaan halkan waddada ma haysataa adeero وشيغو سعو شيغو وباكن استاكل باكن